السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شريركيga hadda waxaan ka dhigtay maxaa la dhahaa mask. waxaan sameynayaa insha Allah bismillah kareem waxaan rabaa inaan idin la qaybsado just waxaan sameynayaa vlog yar aan sameynayaa every subax kasta markaan soo kaco gurigana waxaan sameeyaa aan hawada u furan tahay soo haddana waa furay haday saaka markaan soo kacno waa furay haddana mar labaad waa furayaa so I'm going to just spray the whole house and barkimahaana ka saaraya wixii aan dhaqi karo makiintaan ku ridayaa wixii oo la dhaqi karin ma taqaanaa sheegana buufinaya das waxaan sameynayaa so disinfection aan sameynayaa insha Allah waa idin la qaybsan dhaqtar maahi wax ma taqaanaa waxaan my way aan sameynayaa sa aqaan la u sameynayaa wax kale aan sameyn karo male and so waa ogaa kan mask caadi ma aha laakiin waxaan diidaa bustas wajiga ku soo dhacaysa xoogaa inaan iska cover gareeyo ma fahanteen so wajiga igu soo dhicin and so mask badan waa haystaa geedaha gacmaha oo badan waa haystaa laakiin ma ku shaqeyn kartid waxa way neefta kugu dhageyso sidis waxaan sameynayaa insha Allah gurigan dhan fadhigan dhan hadda waxaan sameynayaa inaan iska and disinfection ku sameeyo then go to bathroom and maxaa I'm social disinfection ku sameeynaa jikada sidoo kale to wax walba inaan sameeyo waa ma fahanteen so okay waa idinka soo noqdo walaalay haddana waa ikana aywa so videogan waxa inoo soo duwayaantii anaga dhan corona hayso oo aan xanuunsanayn ani markaas ma aanan xanuunsanayn laakiin xaajiga waa tuu iga xanuunsanaa aan videogan soo duubay marka haddartaana coda idin soo saarooyaa so walaalay ani waxaan maqlay walaashay maxaa la dhahaa sheegeen Munira maxaa la my radio channel maxaa la sheegadan xaajigeed ka xanuunsan yahay aniga xalale maqlay insha Allah video aan ka soo hadli doono soo duubi doona laakiin yaantan de YouTube man soo galaynin marka walaasheen insha Allah waxaan rabaa walaalahay in idinkan iigu soo duceysaan inuu xaajigeeda caafimaad mataqaana degdeg ah siiyo iyadii reerkeedana mataqaana Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu ka badbaadiyo waxyaabahan iyo cuduradan tirada badan socdo anaga waa soo marnay Ilaahay waa naga saaray hooya idin informationka hooyana waxaan rabaa hadda inaan idinku sii tuuro hooyo way fiicanta alxamdulillah shalay jimcihii maanta aan dhihnay jimcihii ay soo noqotay gurigeeda ku soo noqotay and alxamdulillah she's doing fine you guys alxamdulillah wili gaaskii laakiin ku socdo gaaskii loo soo qaaday guriga laakiin cudurkii waa ka baxay and caafimaadkeeda tam waa alxamdulillah ducadiina ma taqaana ayaanan intaas ku soo gaarnay waana maasantiin walaalahay jazakallahu khayr barakallahu fiik ilaahay subhanahu wa ta'ala ducooyinkeena noo soo duceysan maanta yawmal qiyaamaha ma taqaana miisaankeena xasanaadka idin saaro waa ina soo duceena walaalaheen marka qofkii xanuunsan ina u duceeno way wax kale hadaan u qaban karinin marka walaasheen waxaan rajaclaan lahaa ina igu soo duceysaan Munira iyada iyo reerkeeda iyo xaajigeeda hadii la heraale ka noqdo walaalahay midda kale to aan rabo walaalahay ina idin la qaybsado waxa waaye waa ujeedaan bacdiya ku wada guraya wixii ma taqaana aan dhaqi karin isla markaas so boofiskana geedkana maxaan la ishiga fadhigii oo dhan aan buufinayay so disinfection ay noqotay inaan maantaas ku sameeyo guriga dhan alxamdulillah so videogan waa idinkala soo daahay maadaama anaga iska xanuunsaneen haddana maamada naga xanuunsatay haddana mataqaanaa run ahaantii ayaantan dhan mataqaanaa intay hooyo horta isbitaalka inooga jirtay aniga xaaladeeda waxay ahayd ma garanaynin ma fahanti so wixii maalintii maxay kala ahayd waa kala garan waay because aadaan uga walwalsanaa maamadeeda alxamdulillah haddana ilaahay noo caafiyey so disinfection waxaan isticmaalayay kii lagu buufinayay iyo kuwii mataqaanaa lagu tirtirayay lagu nadiifinayay oo ayagana disinfection ka ahaa markii maxaa la ishaan remodyadii iyo TV-gii iyo maxaa la isheegane computeradii iyo miisk warweel kastaan isdhihi kara aleele qofkii xanuunsanaa wuu taabtay lana xisaabta waxaa ku darsanaysaan xaajiga maadaama uu xanuun ku soo socday adiga in muddo qaadanaysa inta qofkiisa jirkiisa laga helayo xanuunka ama soo baxayo inta ka horeysa laakiin waxa dadku u sii dhiibaya uu hindhisada meel kasta gaaraysa gacmihiisa meel kasta uu qabsanayo qofkii marka waa qaadaysa saas anaga aan ku qaadnay ma fahanteen xaajiga asigoo la dhahayo negative way shaqada laga qaadayo negative way maalin kasta la dhahayo uu soo dhacay markii haddana markii laga qaado haddana ugu dambeysan waxay dhaheen waxa waaye waa positive marka cudurkan wuu isqarinaya soo moogidin marka maadaama mariyihii iyo wixii waaweynaa aan dhaqi karinin disinfection kaas u qaatayaan ku dhahay guriga waxaan ka dhigayaan ku dhahay ani iyo boofis noqotaan ku dhahay marka waa iska dadaalayay ana saas u dadaalayna wada waa wataa wada qaadnay anigii aan qaaday ilmihii qaadeen hal wiil ka ahayn waxaan waxa waaye in muddo guriga hadda ku jiro qofkii macnaa wuu qaadayaa you understand
qofkii buu qaadaya waa la kala qaadaya so this is waxa waaye wax caadi ah laakiin inta tabarteena aniga waxaan sameynaa inaan mataqaana gurigan maalin kasta disinfection ku sameeyo aan tirtiro especially meelahaas aan hadda tirtirayo si wax kastaan soo kacno xaajigan waxaan u dhiibay geedkiisa asagana buufiskiisa aan u dhiibay qolkiisa marka kasoo baxay inuu sii buufiyo musqusha inuu sii buufiyo meel kasta uu qabto sii buufiyo waan ku qasbay so annaga dhan buufiskaasaa la cararaynay saasay tahayna waan ugu wada dhacay so anyway iska dadaal waay dadaal you understand dadaalkaasaan isaga jirna walaalahay marka walaahi bilahi walaalahay horta reeto aad iyo aad horta waxaa idinkaga mahad celinayaa supportkiina iyo ducadiina iyo mataqaana saa noo soo duceysan alxamdulilah la-aantiina waxaa waaye waxaan umaleynayaa ducadiina la-aantiina yani waxaan umaleynayaa xaaladina si kala noqon lahayd laakiin de maadaama ay noo soo duceysan ducadiina ilaahay aqbalay alxamdulilah ilahay wuxuu qoray la helaa laakiin ducadana waa muhiim mar walbo ma fahanteen alxamdulilah walaashay macaana muniirana xanuunsan xaaji ka xanuunsayadii familkeedan walaalahay baliis igu soo duceeya iyadana ilaahay subxaana watacaala xanuunkan mataqaanaa hadduu xanuunkan yahay ilaahay ka qaado hadduu mid kale yahayn ilaahay ka qaado ilaahayna kenham u keeno annaga aad iyo aad hooya nooga sakaraatay waxay ku jirtay isbitaalka malaha 3 wiig nooga jirtay sanbabihii isxiray sanbabihii uu qabsaday geedka iyada waa la gadiyay xabad loo seexiyey ayagoo dhahayaan waxaan u wadnaa mataqaana ii sheegeen dhinaca oo intensive care-kana aad uga baqin in la geeyo walaalahay dad badanaa iisoo qoray maxaa isbitaalka loo geeyo hooyo isbitaalka horta kow iidaa dalbatay waayo hooyo guriga waxaan ku haynay malaha week iyo xoogaa ayaan ku haynay guriga aan ku dadaalayna in guriga mataqaanaa oo lagu haayo laakiin hooyo waxay noqotay inay wax cuni weydo wiigaasi barka guriga lagu haayay wax way cuni weyday neefna way qabtaa hooyaday so neefteedana aad iyo aad u dhibaysay qofaceedna aad u badnaa ma fahanteen marka qofaca aawadiisa xataa waxaa lagu dhahay waxaa la dhahay dhuunta maarkin oo waxaa gaaray ii sheegeen dhuuntaa waxaa gaaray jax muu yeeshay damage uu yeeshay dhuunta maadaama ay aada u qofacayso 2 eray iska daba keeni weyday maalinta dambeeto walaalkii iyo reerkii waxay ku tiri dhageystay tiri aniga tayda hadday timaado waa khayr laakiin aniga isbitaal hal ii geeyo dhakhtarka hal ii waco iyadaa dalbatay marka qofkii biniaadankana macnaha wuxuu asaga dalbaday in loo ogolaado way fiican tahay annagana macnaha wax ma aan ka qaban karin run ahaantii dhakhtarkii markii la geeyna hooyo situationkeeda aad u liitay dhaqaatiirta waxay dhahan hadday sii joogi lahayd ma u malaynaynan in si survive garowleed because sanbabadeeda support badan u baahnaa sanbabadeeda wuxuu ahaa aad u liitay markii la geeyaba hooyo sariirtii maxaa la shanqol kaligeeda la geeyey xabada loo seexiyey maxaa la oxygen oo caadi ahayn waa lagu furay marka oxygenkii tirada badnaana hooyo way qaadanaysay marka codka wax yar inii sidaanaya waa idinku soo noqonayay walahi markaan waa hufrey waa buufiye waxaan waa buufiye meelaha waa tirtiray waa gubanayaa so yeah koodi waaye so lunchtime waa qad inaan diyaariyo waaye albaabadana ciyaalkan u diray qolalka jiifka iyo qolalkooda jiifka musqusha inay geedka kusoo buufiyaan albaabada meesha lagu qabsado asagana xaajiga wuxuu haystaa buufiskaas oo kaleeto qolkiisa marka kasoo baxayo albaabkiisa meesha ka furayo wuu buufinayaa musqusha meesha ku fursanaya marka ka kaco wuu buufinayaa meel kasta uu aleylahay taabta ama contact la yeesho wuu buufiyaa markaas musqusha darashada usoo fura markaas kasoo baxaa so that's good anagana waa ka daba buufinaa so that's good maxama dadkaan iska bixiyo gacmihii ay horay and yeah that's it actually and so maanta waxaan ku jiro on this infection kaasa ku jiray and qolka jiifkana dee markii uu insha allah caafimaado kasoo baxo howl badanaa u taala kaas yeah so howl badanaa taas u taala makeup brushkayga wixii oo dhan meesha yaalaan so kulli I have to disinfect everything wax kasta inaan kasoo saaro disinfect ku sameeyo qolka jiifka laakiin haddeertaan alxamdulilah go-yaasheedii waa kuwana maxaa la ii sheegana barkintaas waan ka bixinayaa foodraha waa kasoo furay shinyeerka waan ka furay so kajas waxaan geenayaa meesha lagu dhaqo waana buufiye so that's it insha allah hadhowa markay ismaqleena insha allah asalaamu calaykum okay maantana waxaa maalinta dambe waaye isku maalin ma ahayn
xaajiga markuu caafimaaday oo mataqaanaa qolkan aan iska hagaajinayay I think maanta xataa inaan life idiin soo galay so maalintaasay ahayd anyway qolkana marka waxaan rabay inaan maanta mataqaanaa ka dhex baxo aniga maadaama anaga fadhiga aan seexanayn si kaligiis u seexanayo waxaa waaye qolkana waxaan sameynayay heedha mataqaanaan oh my god especially marka sariirteeda waxaa waaye maadaama dushaas ay tahay maro laga sameeyey qofkii hadduu dhiso qofaca meeshaas way gelaysaa ma so alaabtaasaan buufinaya aan nadiifinayo waa disinfection ku sameynayay doorkan waxa waa aniga waa soo qaaday cudurka anaga dhan waa ka soo kacnay alxamdulilah so ma ana uga baqaynin inaan cudurka qaadayo mar labaad because marba haddaa qaadid I think 6 bilood inaad tahay immune because xaajiga haddartaan talaal dalbada waxay dhaheen September ka hor muku talaaleen maadaama hadda ka kacday cudurka ma fahanteen so ma aan uga baqaynin inaan mataqaana cudurka qaado laakiin laana qolkiina iska nadiifiyo waan muhiim bakteeriyada iska dilno so yeah that's why aan mataqaana maski waxba u xiranaynin waa ka soo kacna cudurka alxamdulilah so sheekada hooya inii waday hooyo markaa waxay dhaheen waxaan u gudbinaynaa kuwa waxayna dhaheen waxaan u gudbinaynaa dhinaca oo intensive care-kana de waxa waaye dadki qofkii galo waa yari waxa ka soo baxo aad iyo aadaan uga walwalsanayn marka xooga waxaan saarnaa inayna geynin maamada waxay ku fiicnayd way hadlaysay alxamdulilah way hadlaysay laakiin hadalkeeda wuxuu ahaa afar eray 5 eray ka badan ma aysan hadlaynin marka waa xoogaan saarayna inaan mataqaanaa hooyo u sheegno in mataqaanaa markay kuu soo galaan inaysan daciif isxijiso is-adkeyso saysan mataqaanaa ula cararin meesha maamadana maasha allah aad iyo aad wax nooga maqashay alxamdulilah adiga uun mataqaanaa halkaas telefoonkaas unba kala xiriireynay mana loo ogoleen marka hooyo waxay dabreentay maxaa la dhahaa isheegin qabow anigana geedkan waa aqaanaa qabowga yar hadduu ku qabto qofacaagan uu badanaya hindhisadana wuu badanayaa so anaa ogaan mogtaana igu dhacay ko so qabowaan dareemo markay tiraahday waxaan xooga saarnay in mataqaanaa geedka kululeysada qolkiin heaterka loo daaro dadkanna waxa dad caafimaad qaba waxay ku leeyihiin heaterkeeda waa okay oo ujeedaan wax walbaan buufinayo walaalahay heaterkan waa okay ku leeyihiin mugtaa laakiin qof caafimaad qaba qof xanuunsan isku sim maaha marka waxaan ku dhahnaa okay heaterka looma umaleyna intaan ka badan u shidayaan laakiin ha loo geeyo wixii la isku kululeynayay sidii oo la xirin nursigii marka waxaan ku dhahnaa geedkaas aan keensanaynaa annaga kuleysada waxay dhan yaa la keenin wax banaanka laga keeno ma ogolin laakiin annaga hayno mid annaga aan kuleyno microwave-ka la geliyo la siiyo aniga waxaan sameynaa marka oo mataqaana xanuun i qabto ama feeraha ay xanuunaya ama xabadka ay xanuunaya ama qabow aan dareemo in aan mataqaana geedkan isticmaalo kululeysada aan xabadka saarto dhabarka aan saarto aad iyo aad u i caawinayay caagada biyaha lagu kululeeyaan ka hadlaya marka maamada sidii aan ugu dalabnay alxamdulilah naagii way naga ogolaadeen waxay dhaheen okay waa loo geeyey geedkaas I think inuu wax badan ka caawiyo because aad iyo aad qofka mataqaana xanuunsan haddana qarqaryoonayo marka geed guriga waa buufinoyaa waxaan sameynayaa darishadan u daynayaa saan inta mataqaana dekaha inuu mataqaana xoogaa yar u qalalo marka waqti yaraan siiyey soo haween markay noqotay aan soo galay aan googlay ka hor inta kaleeto maalinta soo dhan majedaan waa dhameeyey midaan dhameeyey mid kalaa la soo baxay joodariga waxaanan buufinin madin lahaa idin dhahay marka hawadaan u furay waa u daay saana ku daay dhowr saacadood saas iska ahaa ilaa ima fiidka u gaaray markaas kabacdi waxaan sameeyey darishadaha go-ayaashan kulli inaan qaada banaanka ku waray iyo darishadaha iyo ku warwaray maxaa la bustahana inaan joodarigan waxaan u daayay maxaa la sheegay inuu haweysto oo geedkaas mataqaanaa qaato buufiska si fiican u qaato aan u daayay marka bustahan ka wada bustahana banaankan geeyey makeup brushada dhanna waan dhaqay marka insha allah haddana codka idiin sii daanaya xoogaa kabacdi insha allah waa isku soo noqonaynaa waxaan idin tusayaa end productiga hoosha gurigan ka hayay maanta howl badan aan ka hayo you guys marka waa kaas walaalahay I hope ina enjoy garaysaan like and share and subscribe isa okay walaalahay insha allah saana ku daynaya qolka waa kulli waxaan ka sameeyey mataqaanaa waa wada buufiyey barkimaa xaggaan saaray darishada waan buufiyey so I'm gonna just let it sit waxaan u daynaya inuu maxaan la isheena sunta ay gasho sanka ay gasho so yeah I should wear mask somehow in a mask xirta ahead whatever anyway kullu maadaama anaga hadda corona aan qabno oo soo daayay ma aragtay I'm not gonna get corona ma helay laakiin still bacteria dan rabaan iska daayo yeah so waxaan rabaa inaan waxaan iska sii mataqaanaa bacteria iska qaadno so u daynaya hadhow maxaa sameynaya just inaan google sariirta ma fahanteen intaan waan tirtiray waxaan ka qaaday waxaan dhan waan tirtiray kulli waan tirtiray yani waan nadiifiyey waan hagaajiyey so muraayadana idham inaan hagaajiyo nadiifiyo
that's it actually. Okay. So hadda waxaan intusaya makeup brushadii inaan soo qaadan dhaqaya walaalahay waxaan ku dhaqayay qalka iyo waxaan ku dhaqay shaamba horta ku dhaqay shaamba ku dhaqay and then qalan ku dhaqay iyo biyo kulul xoogaa biyo kulul oo karkarinin laakiin ya biyo kulul iyo qal ma aragtay baan ku daayay awal bina dhaqay ahayd so still maxaa la isheegana makeupka wali saaran marka biyaas kulul iyo qalkaas xoogaa u daayay inuu mataqaanaa isheegana adigu waxaan ku daayay umaleynaya nus saac ama hal saac waqti ba ku daayay dheer ka bacina waan ka biiraaciyay waan qalajiyay saasan sameeyay because bacteria badan ay qabsanaysaa mana aan rabin in mataqaana kuwan oo antibacterial kan ku dhaqo because waxaan wajigayga hadhow gaarayaan mana rabo in mataqaana disinfectionka chemical ko tirada badan inuu iga xarxaro waa kaasa walaalahay marka alxamdulilah yani xoogaa yar marka anaga aan soo qabsanay oo aleele aan isdhahayna week camal miya week 10 beri camal anagoo caafimaad qabno watan haddan hooyo naga soo dhacday marka waxa waaye alxamdulilah imtixaanka adduunka waaye ilaahi subxaana watacaala kuwii ku baasa naga dhigo dacooyinkiina desa idin sheega waa naafaceen marka walaalahay macaan hadda keeshaan videogan insha allah like and share and subscribe haddaan ugu cusubtiin ugu sabiiran janalka xaasi hooyaa la dhahaa wax walba hooyo soomaaliyeed ku saabsan aan ka hadalnaa insha allah biidmillahi alkariim I hope you guys waa ujeedaan biyo karkaraya iyo waxaan dhexgeliyay maxaa la sheegana qalkaasaan dhexgeliyay so yeah daasan ku sii daayay si fiican midkii kasta ku qoyay marka insha Allah waxaan jeclaan lahaa inaan mataqaana subscribe noo saartaan hadda walaalay hadda hadii kuwii mataqaana igu xiraatiin walaalay macana igu xiraatiin please social media hina saarta insha Allah la qaybsado dadka kale ta videoyaasha I think nowadays inuu xoogaa mataqaana soo gaabinayo YouTube socodka YouTube inuu soo gaabinayo yani viewgi waxaas insha Allah biidmillahi alkariim waxaan rajaynayaa inaad support isiisaan oo xagaas mataqaana hadii Ilaahay yaraale ka noqdo oo idinkana mataqaana ila qaybsataan videoyaasha walaalihiina kala la qaybsataan soo wajada mugdiya noqotay feedki maalintii dhan banaanka yaaleen alaabtan soo hadda waxaan sameynayaa kaliya inaan mataqaana Google cusub oo nadiif ah oo fresh ah aan saaro kadibna mataqaana soo qabiisto habeenka ugu horeysa aan sariirtan soo seexda waaye I think 2 week ma ana seexanin kursi waa taa hurudna aan xanuunsanayn soo habeenka ugu horeysa waa sariirta soo seexda so yeah gogasha saanta ku googlaya soo maxaa la sheegana caawa I'm celebrating really in sariirta soo seexdo because dhabarkaygana aad u xanuunayay waa ogtihiin ani dhabarka maadaama aan ka qalanahay oo biro igu jiraan adana kursigiina waa dhibay ma fahanteen so it was like I was having problem badan dhabarkayga haystay xanuun badan iga haystay so alxamdulillah sariirteeda ku soo noqday anyway so gogasha walaalahay video hadda goor aan soo duubay busta weyn hadda qabsida loo saarto sariirta ugu fudud ani I love this style kan aad uga helaa videogaas insha Allah bidmilaa kora inii soo dhigaya hadda keeshaan ka fiirsada sida matqaan ugu fudud go'yaashana marka soo gadanaysa insha Allah fiiriya haduu xargal leeyahay geesaha adduunka waxa ku nacay bustaha had marka dhexgalis uu ku dhex cararayo marada marka xargaan waxay sameynaysaa bustaha waligiis ma cararayo meeshiisu joogaya so bustaha soo gadanaysid coverkiisa waliga alaha fiiri haduu leeyahay xargo haduu saleen xataa adiga ku talan karta xargaha ma faantay so xargaa wuxuu ku fiican yahay ma cararayo marka saasa u soo duuduuba hal mar la jag kasoo siyaasanan ugu fad awal waa ku dhibaatoon jiray moogta bustada weyn sida loo geliyay maradeeda marka always fiirsada walaalahay marada inay lahaato xargo adeedan lahayn bay xargo u talo wallahi waxaan ku dhaay maradaas jag ay ku dhaysaa waligeed marka adduunka waxaan ku nacay markay hoosta gasho ay cararto oo dhulka gasho I hate that you guys anyway waa tip intaas yahay hadda jeceshiin sameeysta hadii Ilaahay raali ka noqdo insha Allah biidmillahi alkariim trying ina hadda ramadaanta maxaa la sheeganay taking easy aan sameeyo ramadaanta inaan matqana ka faa'iideysto you guys ramadaan ka faa'iideysta intaan ka joogno guryaheena aan ka faa'iideysano mar raba too much inaan matqana waxyaabo kale aan busy isaga dhiga ma fahanteen ramadaankeenga raba inaan enjoy gareeyo insha Allah biidmillahi alkariim idinkana sidoo kale taan idin rajeynaya unless aan marka qarkood live idin soo gala idin sheekeeyo xoogaa yar insha Allah biidmillahi alkariim ya waxaa idin leedahay ramadaan kariim ramadaan mubaarak insha Allah bidmillahi kariim qolkii waa kana waa nadiifiyay nag iyo nablan ka dhigay okay insha Allah like and share and subscribe please dhulkana waa hufrey waa kaasa marka ma sha Allah aan ka dhigay qolka alxamdulillah hawo fiican waan siiyay bacteria dhanna waan ka dilay inta tabarteeda ah soo maaha
marka waxaan ku dhahay howl badan waa ii taala walaalahay howl badanaa ii taalay hooyo hoosheeda ma dhamaato marka insha allah bidmi adigana waxaan rajaynaa inaan xooga yar oo dhiirigelin kuu noqoto gurigaaga mataqaanaa hadda inta xataa shaqeynaa dhagaa iska gashatid oo ila shaqaysid yaa dhac igala ka siisid ani waan jeclaa videoyaasha motivationka oo guri nadiifinta ah because waxaan jeclaa gurigayga always inuu elegant nadiif iska ahaado marka waxaan dhiirigeliyo videoyaasha noocan oo kaleeta ay dhiirigeliyo markaan arko inaan anigan aan kaco oo shaqaysto ma fahanteen so intaas aan idinku soo duubnaa inaan dhiirigelino aniga wallahi waa fiirsadaa videoyaasha waan jeclahay oo dhiirigelinta nadaafadda I love weligeena ma joojinaa nadaafadla ma fahanteen hal maalin xataa wiiga haddii in soo gelibo laakiin ma joojinaa because videoyaasha noocan anaa jecel so weligay waa iska jeclaa marka hadda waxaan u furay waxaan saaray geedkii oo uumisadan saaray uumisadan waxaan ku shubaaya maxaa la sheegana drabkan yarkan ku shubaaya waxa waa carfiso waaye caraf waxaa ka dhigaya qolkaaga oh my goodness carafta fresh u ka dhigaya wallahi unsi aad ku tahay allergic ma arkino geedkan uumisadan soo qaado biyo yara ku shubaysaa geedkana 3-4 gooja dhab ku siinaysaa aromati waaye wuxuu ka dhigaya nooc kasta u helaysa ayagoo ah aniga kan waxa waaye lavender iyo I think lavender inuu yahay kan mise wuxuu ahaa vanilla ani labadaasaan favorite special lavenderka wuxuu ku fiican yahay qolka jiifka hurdada u fiican yahay qofka calm uu ka dhigayaa calm collected macaan uu ka dhigaa hurdo fiican uu ku siinaya xataa mugtaa marka walaalahay intaas waxaan idinkaga tagayaa habeen wanaagsan maalin wanaagsan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu like and share and subscribe bye bye